madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo ayaa socdaal rasmi ah ku yimid Abu Dhabi Imaaraadka Carabta. Socdaalkan oo ah mid rasmi ah inta uu joogo waxa uu la kulmi doonaa mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta ayuu la kulmi doonaa. Tallaabadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yimid dalka Imaaraadka Carabta waxay ka mid tahay tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee madaxweyne Axmed Maxamuud Silaanyo uu doonayo in arrinteena amba qadiyadda reer Soomaaliland garnaqsigeega uu cid walba u bandhigo si qadiyadda Soomaaliland ay garawshiyo caalami ah u hesho. waa taata madaxweynuhu u yimid, waa taa uu meel walba u tagayaa sidii uu qarankan u noqon lahaa qaran la aqbalo, qaran qadiyadda shacabka reer Soomaaliland ee xaqa iyo xuquuqda waxay u leeyihiin in adduunkana uu garawshiyo ka helo. muhiimad weyn bay qaranka u leedahay halkan imaankeeda madaxweynaha qaranku. waa wadan islaam ah, waa wadan aynu walaalanahay, waa wadan wax badan inaga tari kara xag dhaqaale, xag dib u dhis iyo dhinacyo fara badan wax badan inaga tari kara. wafdigaasi madaxweynaha waxaa ka mid ahaa oo ku wehelinayay wafdi culus weeye, waxaa ku wehelinayay marwada koowaad ee qaranka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada, waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka madaxtooyada, wasiirka maaliyadda, wasiirka beeraha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo afhayeenka madaxtooyada. muddo dhowr cishay qaadan doontaa booqashadani, runtii dhowr cishay qaadan doontaa. dhowrkaa cishay wafdigan Soomaaliland ee halkan jooga madaxweynuhu hogaaminayona waxay arki doonaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka. waxaa runtii farxad iyo diilo iyo mahadnaqba mudan sidii wacnayd ee karaamada lahayd ee sharafta lahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland loogu soo dhaweeyey Abu Dhabi oo qof la qiimeynayo, muxtarima, madaxweyne la qiimeynayo sidiisii baa loo soo dhaweeyey. runtii sharaf bay u tahay shacabka Soomaaliland. aad iyo aad baa wafdiga iyo madaxweynuhuba ugu faraxsan yihiin sida qiimaha badan ee loo soo dhaweeyey. dareen farxad leh ayaan kaga jawaabanaa arrintaasi. sida loo soo dhaweeyey madaxweynena waxaan ka arkanaa sidii airportka loogu qaabilay, red carpetkii ilaa diyaaraddii albaabkaygii la keenay. runtii aad iyo aad baa farxad ay taas u samaynaysaa. marka waxaan jecel lahay in wixii dambe shacabka Soomaaliland wixii dambe aan la socodsiin doono inta wafdigu dhowr maalmood oo halkan joogi doono, tallaabooyinka iyo kulamada uu qaadi doono aan si joogto ah insha Allah ula socodsiin doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.